suuqa ayaa weli furan, sheekooyinka ciyaaraha ayaana kuwa ugu waaweyn waqtigan aadka loo hadalhayo maadaama ay soo dhammaadeen tartamadii xiisaha badnaa layskuna diyaarin doono horyaalada kala duwan oo furmi doona Agosto. Leny Yoro ninka lagu magacaabo oo qayb ka ah daafacyada kooxda Lille ayaa aqbalay ku biiritaan kooxda Manchester ka oo soo duuli doona UK heshiisku eeg 2029. Real Madrid ayaana isaga baxday laacibkan doonistiisa maadaama xilli hore ay daneynaysay sidoo qoray Fabrizio Hawkins in lagu magacaabo. Yoro wuxuu qayb ka ahaa ciyaartoy da'yar difaaca ka ciyaara kooxuhuna aadka u xiiseeyeen inay soo qaataan, laakiin ugu dambeyn familkiisa ayaa ku qanciyay wakiilkiisa xiddigan inuu soo aado gudaha Ingiriiska. Dusan Tadic wuxuu qayb ka ahaa ciyaartoyda xulka Serbia, wuxuuna qayb ka ahaa ciyaartoyda ugu muhiimsaneyd, laakiin wuxuu ku dhawaaqay gebi ahaanba inuu isaga fariistay ciyaaraha caalamiga ah. Laacibkii hore kooxda Southampton Paris Saint-Germain ayaa heshiis la gaartay Benfica qadkeeda dhexe Joao Neves in lagu magacaabo, waana xiddig qad dhexe aad u wanaagsan, kooxo badan ay daneynayeen Benfica ayuuna ka tirsan yahay laacibkan. Nico Williams ayaa ogolaaday inuu ku biiro kooxda Barcelona. Xiddigan ayaa doonaya waqti inuu garab ciyaaro xiddiga isku wadanka yihiin ee Lamine Yamal ka bandhig wanaagsan ay kasoo sameeyeen xulka qaranka dalka Spain sida uu qoray Fabrizio Romano. Alex Dizazi, Malo Augusto, Wesley Fofana dhammaantood way ka laabteen barta Instagram-ka xiddiga caanka Enzo Fernandez ka oo hadallo cunsuriyada u geystay xiddigaasi Faransiiska, inkastoo xiddiga uu raaligelin ka bixiyay arrintaasi kadib. dhinaca kale sheekooyinka maanta la hadalhayo waxaa qayb ka Real Madrid ayaa soo bandhigaysa doonisteeda Alexander Arnold oo ka tirsan kooxda Liverpool. laacibkan heshiiskiisa sanadka soo aadan ayuu dhammaan doonaa. Real ayaana doonaysa laacibkan inay soo qaadato difaacana ay ka dhigto xiddigaha ay xiiseynayso maadaama ay hore u soo qaadatay ninka lagu magacaabo Kylian Mbappe. Pierre-Emerick Aubameyang ayaa macsalaamiyey kooxda Marseille taageerayaasheeda isagoo ku biiray wadaagga Sacuudi Carabiya. kooxda Al-Qadish ayuuna ku biiray xiddigan 2 sano heshiisa ayuu la galo kooxdaasi. Mason Greenwood ayaa isna dhammaystiri doona ku biiritaanka kooxda Marseille heshiisku eeg 2029. 30 milyan ayaana United ka xiddigan looga iibsanaya xilligan maadaama amaah ku soo qaad sanadkii hore kooxda Spain ciyaarta. Alvaro Morata wuxuu dhammaystiray ku biiritaanka AC Milan heshiisku eeg 2028. 13 milyan ayuu xiddigan sanadkii heli doonaa, waana mid ka mid ah xiddigii ku soo guuleystay tartanka Euro ee Spain uu kula guuleystay. laacibkan uuna aqbalay ku biiritaanka kooxda magaalada Milan ka dhisan. Paris Saint-Germain mar kale ku soo laabatay Victor Osimhen oo ka tirsan kooxda Napoli. laacibkan ayaa doonaya inay soo qaataan, waana mid ka mid ah waryahanada Talyaaniga kuwooda ugu wanaagsan xilligan. isna wuxuu dooranayaa inuu aado ama ka tago kooxdiisa maadaama uu rabo isbedel badan inuu sameeyo dhanka ciyaaraha ama kubadda cagta. Lukaku aqbalay inuu bedel u noqdo Osimhen uuna ku biiro kooxda Napoli si uu mar kale ula shaqeeyo Antonio Conte ay kala soo shaqeeyeen kooxda kubadda cagta Chelsea.